horta anigu ku hadlaya afka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maadaama ay tahay wasaaraddii ay marayeen xeerarka waddanka mara waxaan ballan qaadaynaa inaan annaga iyo wasiirkayga aniguba aan ka shaqayn doono sidii wasaaraddeedu ay ugu howlgelayeen sidii loo samayn lahaa xeer xakameeyo waxan markaa unbayna waxaani joogsanayaan kolka xeer loo sameeyo aad baan diyaar u nahay waana ka shaqayn doonaa dee kulley sharaxaadda iyo dhibta uu leeyahay waxaa ku sii dheeraaday sharciyo hay-adihii dadkii dee ka shaqayn jiray awalba kulley in yaroo xikaayaadoo laygu yaqaanoo sheeko aan ku yar dariye kolka hawsha la galo hawsha guddiinka kolka la galo 3 marxaladood baa gabadha heshay mar waa kan inkastuu kaasi leeyahay kufsi yar kufsiga marna dumarkaa sameeyo waa kuwa gabadhii googoynaya toltolaya marna raggaaba sameeyo waa ficil xun marna ficilkaasi dhibta uu geysta caafimaad ahaan baa gabadhaa kusoo dulee habeenkay ugu fiican tahay ee gabadhaasi farxi lahaydna dhib bay la kulantaa reeraha yagaa galbeedka waxaa lagu sheegaya nin geer badan ka bixiyey gabadh shaqadaana laga qabtay oo xoog gidaar ku adag yahay ninkii habeenkii farxaddii buu soo duuloo meeshii sagxad waxba uu ka qaadi waayo sodohdii baa dhegaysatay subaxii naabal ka waran bay tiro hala biiriyaa la yidhi waa la yar saray habeenkii labaad buu yimid oo makaano haddana meeshii daaqadii waa laga geli kari waayey mar saddexaadkii baa la yidhi halugu noqdo subaxii kolkay yaabtay tiri buuxa sara maahine buux seema baa la warin bay tiri bal ma isagaba la qoro bay tiri inta aniga way jarayo balaayada wiilka sita marka intaasna xikaayad bay tahay aad baan inoogu mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum.